warkaasina haya deeqdan oo ka koobnayd bur bariis saliid caanaboore iyo sokor iyo agabka loogu talagalay dalagyada kala duwan ee dhulbeereedka ayay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya wasiir ka socda maanta waxa ay gaarsiiyeen dad danyar ah oo ku nool deegaanka lambar konton ee gobolka Shabeellaha Hoose. Cabdullaahi Cali Axmed Waafow gudoomiyaha deegaanka lambar konton oo saxaafadda kula hadlay goobta deeqdaas lagu bixinayay ayaa sheegay dadaalo ay sameeyeen maamulka koonfur galbeed Soomaaliya sanado badan kadib in markii ugu horeysay maanta la soo gaarsiiyay dadka danta yar ee ku nool deegaanka lambar konton deeq raashin ah. dhammaan ummadda waxaan u sheegaynaa ama beesha caalamka u sheegaynaa lambar konton ama degmada Raaxoole waxay u baahan tahay in gargaar bini'aadaneed loo fidiyo. waxaan horay u sheegnay ama u sheegay madaxweynuhu dawladda koonfur galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan hay'adaha caalamka inay u soo gurmadaan lambar konton. annagana waxaanu leenahay lambar konton waa meel loo soo gurmid u baahan waaye. waxaan u baahannahay haddii aanu nahay maamulkii meesha joog ama dadkii dadweynihii deganaa sidoo kale hay'ad kasta inay ku soo dayato gargaarkaas dadku danyarta la siinaayo oo nidaamka iyo maaragtay muxuu ahaay maamulnimada ku baxaayo shacabkii loogu adeegahayo inay soo gaaraan oo ay soo gurmadaan. in aan deegaanka Raaxoole number konton aan ka qaybino sahay gargaara oo hay'adda leeyahay Islamic Relief ay ugu tala gashay in ay ku wareejiso dawlad goboleedka koonfur galbeed wasaaraddiisa arrimaha gargaarka ka bacdina lagu wareejiyo degmada number konton. waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo inaan wax colaada oo ka jira number konton aanay jirin. in cid walba oo danaynaysa inay wax u qabato ay ku sugan yihiin dadkii mudnaa in wax loo qabto iyo dadkii amnigooda ka shaqaynayay intuba inay diyaar ku yihiin. waxaan rabaa inaan codsi u jeediyo baaq u jeediyo hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa lookalka ah ganacsatada iyo cid walba oo awooda inay wax ka qabato baahida maanta ka jirta deegaanka X number konton. Cabdullaahi Muuse wasiirka daryeelka naafada iyo arrimaha bini'aadanimada ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo halkaasi saxaafadda kula hadlay ayaa tilmaamay in maamulka koonfur galbeed Soomaaliya uu ku dadaalayo wax u qabashada dadka danta yar ee ku nool deegaanada uu ka arrimiyo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. waad ogsootihiin deegaankan dadka waxbay ka sheegi jireen meel la tagi kara ma aha meel colaad ay ka jirto waaye. maanta waxaan u jeednaa iyo maalmihii ka sii horeeyaba in wixii dadka ay sheegayeen ay been yihiin oo aysan ahayn meel colaad ay ka jirto oo aysan ahayn meel dhib oo ka jiro waayo ilaa hadeertaan waxaan u joogno wax khilaaf ah ama oo maamul xumeena ma hayno. aad iyo aad maamulka ayaa taas asna ugu mahad celinayna oo nidaamkan oo deegaanka sida loo dhaqmaayo ayagana taas aad aan ugu faraxsanahay. haddii aan ka soo qaadno raashikaanu waa raashikii ugu horeeyay ee la keena. waxaan idin sheegaynaa haddii ilaahay raal uu ka noqdo raashikaanu ama hay'adaha caalamka waxay ku daya doonaan hay'adda Islamic Relief ay ku daya doonaan. deegaanka lambar konton oo 50 kilomitir u jira magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ku nool dad danyar ah. dagaal beeleedii muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay deegaankan ayaa sababay in hay'adaha gargaarka aysan wax badan imaan. waxaase waqtigii kan deeq raashin soo gaarsiiyay hay'adda Islamic Relief Agency iyadoo u soo marisay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo waqtigan ka arrimiya deegaanka lambar konton ee gobolka Shabeellaha Hoose. magacayga Maxamed Axmed Cali haye maanta waxaa ku sugan tahay Maxamed meeshaan. maanta waxaan ku suganahay lambar konton. haweenada noola keenay waa nalagu gudoomiyey waa ku mahadsantihiin maamulka koonfur galbeed. waxaa iga sheekaysaa noloshiin qoyskiina sidee waa nolosheena anaga runtii nolosheena dhibaato badan waa soo marnay magaaladeena waa la gubay dhib badan waa soo marnay qax waa galnay haddeeraan ku soo ururnay magaaladeen anagoo aadba qof mar yimid meesha. iga sheekay soo bilaw lambar konton maxaa ka dhacay adiga maxaa ka soo gaaray. aniga dhib weyn iga soo gaaray odagayga waa lagu dilay gurigayga waa lagu gubay ilmahayga waa agooman
hal sano duurkan ku maqnaay haddeeran soo galay maanta hantideeda dhan waa la dhacay ilmahayga qaarba meelay ku nooleed haddeera isu nimid markaa isu nimidne raashinaa noo keentay waa idinka guddoomay. ninkaaga maxaa la oran jiray? ninkayga waa nin magac dheer u ahaa waxaa la yidhahaa abuukar maxamed mahadale abuukar jirriqaa la dhahaa beertiisa loogu tegay tuugaa dishay dagaalihii tirada badnaa waan ugu kordhaceen guryaheenna waa la baabi'iyey waxaa haysanay hanti waana laga dhacay meeshaasaan ku suganay haddeer meeqa xilligaa u dhashay marka? carruur badanaa u dhalay meeqa gaareen? ilaa 8 cunugaa u dhalay. waayahay waxaad iga sheekaysaa marka nolosha qoyskiin hadda waa sidee maxaad dareentaa? aniga wallaahi nolosheenna awal odagaa noo shaqayn jiray beeraan lahayn nolosheenna awal waxay ku xirneed beertina aniga haddeer waxaa nahay carruur iyo hooy anaa beer ma ka shaqayna qaan. aways maxamuud jilicow royal tv deegaanka lambar konton gobolka shabeellaha hoose. waa tahay daawadayaal